ninka caanka ah ee TikTok-ta aadka caanka uga ah ee Dhifiq lagu magacaabo ayaa waxa uu soo gaaray dalka isagoo ka yimid dalkaasi Jarmalka oo markaasi muddo 6 sano ka hor uu taariikh u galay waxaana lagu soo dhaweeyay magaalada Jigjiga caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan garoonka markaasi Garaad Wiilwaal waxa markaasi si weyn u soo dhaweeyay shacabka halkaasi ku sugan iyadoo oo markaasi isaguna halkaasi ka soo degay oo safar xaggaas uga soo baxay haddaba daawadayaal waxaan idin haynaa muuqaal markaasi isagoo la soo dhaweynayay sidoo kale dadkii deegaankaasi ku sugnaa oo jaandheer iyo sidoo kale dhaantooyin wax loo kala garan waayay ku soo dhaweynaya muuqaala kooban ayaan halkaasi ka helnay oo markaasi Dhifiq lagu soo dhaweynayo Dhifiq oo afka xumbada ka tuurayo oo qaad markaasi usoo xarka ka xidhay ayaa jooga meesha inkastoo isaga iyo markaasi dhalinyaro kale oo fara badan ay markaasi ku soo dhaweeyeen garoonka Garaad Wiilwaal oo kamid ah garoomada ugu waaweyn dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya bal daawadayaal intaanan hadalleedu ku daalin aan muuqaalka aan daawano marka sida loo soo dhaweeyay sidoo kale dhalinyarada ka soo qayb gashay buraha dunta dheerle qalab nool ku dalxiiso naftu way ugu haysay mahadade naftu way ugu haysay mahadade Jigjigaay gudahaaga qol inaa yara gaadhoon buraha dunta dheerle dalxiiso naftu way ugu haysay mahadade السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dadkii aan ka soo dhoofay reer Jarmalow ama reer Yurubow waa aragtaan sida la soo dhaweeyay si ma sha Allah ah rag iyo gabdhaba waxa soo gawaadhiya waxa soo Soomaaliya waraxdiyo nahaysa si ma sha Allah waxa soo garaada waxa soo abwaana waxa soo fanaaniina waxa soo hablo sharaf leh oo hidii dhaqankii wata ma sha Allah ya xamaalinta Allah ma sha Allah ku faanaya ku soo hadalkaaga وأنا كفر أحسنها ما شاء الله يا تتجوا رديم هذا العلمية thank you وسنة بكفري يا سيدي أو والله شرف يا كرام أي تعال على سوا daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa ninkii Dhifiq ahaa qaad buu soo doonto Yurub qaad looga taag waayay mar haddii uu dowladda deegaanka Soomaalida soo galay qaad isagoo aragaalo oo malaha 30 kiilo ah ayuu maanta kadib qaadka waa isla dhimanayaan baan u maleynayaa isaga qaad marka daawadayaal wuxuu xooga ka soo kordhay sidoo kale meelaha uu tagaba dib ayaan idin ka soo deyn doonaa Abdullah